The world is mourning the loss of a great mind this morning. British theoretical physicist Stephen Hawking has passed away. Stephen Hawking has died, a University of Cambridge spokesman. ستيفن هوكينج أحد أبرز علماء الفيزياء في التاريخ توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 76 عام. Hawking died today at his home in Cambridge, England. He was 76. The world loses one of its greatest minds and most famous scientists. Stephen Hawking has died. رحل اليوم عالم الفيزياء العبقري البريطاني ستيفن هوكينج عن عمر ناهز 76 عاما. 14 Maaj sanadkan 2018 waxaa geeriyooday caalimkii fiisikiska Stephen Hawking. Markaan aragnay dood weyn ay dhimashadiisa dhalisay una kala baxday laba qayb, kuwa taageersan ninkan in Allah naxariis loogu dalbo iyo kuwa u arko arintaasi mid qalad ah inay tahay. Markaas ayaa waxaan go'aansanay inaan sameeyno baaritaan anaga noo gaar ah oo ku saabsan ninkan noloshiisa, wax qabadkiisa iyo afkaartiisa. soona bandhigno filimkani gaaban anagoo ka jawaabayno su'aashan: waa kuma Stephen Hawking? Waa kuma Stephen Hawking? Waa kuma Stephen Hawking? Waa kuma Stephen Hawking? Hi, my name is Stephen Hawking. Stephen William Hawking wuxuu ku dhashay Oxford ee waddanka Ingiriiska 8 Janaayo 1942. wuxuu ka mid yahay culimada theoretical physics iyo cilmiga kownka cosmology, culimada kuwooda ugu muuqda qarniga 20aad. wuxuu jeclay aabihiisa inuu dhigto caafimaadka, laakiin asiga kuma qanacsaneen, wuxuuna jeclaystay inuu dhigto physics. wuxuu dhigtay jaamacadda Oxford, wuxuuna ka helay darajada koowaad ee jaamacadda ee cilmiga physics. wuxuu ku dhameystay waxbarashadiisa jaamacadda Cambridge ilaa uu ka helay darajada PhD ee cilmiga kownka. sanadka 1963 asigoo jir 21 sano waxa ku dhacay Hawking cudur dhif ah oo lagu magacaabo amyotrophic lateral sclerosis ee laga soo gaabay ALS. afka carabina loo yaqaan at-tasallub al-janibi ad-dumuri, waana cudur aan waxba daawo lahayn midkaas oo sababay inuu qofka curiyaamo. markay dhakhaatiirta baarayeen waxay u sheegeen inuu kaliya noolaan doono 2 sano. sidaas ay tahay hadalkaasi kadib wuxuu noolaayay 55 sano kadib. sanadka 1985 waxa qalin loogu sameeyay dhuunta, midaasna ugu dambeyn sabab u noqotay inuu awoodi waayo inuu hadlo. kadib ayaa shirkadda Intel ay soo saartay boroseesarada iyo nidaamyada digitalka ay u horumarisay kombiyuutar khaas ah oo ku xiriirsan kursigiisa, midaas oo awood u yeelaysa Hawking inuu kontrolo dhaqdhaqaaqa kursigaasi iyo asigoo isticmaalayo indhihiisa iyo madaxiisa. asigoo dhibkaasi ku lahayso Hawking dadaalkiisa ma uusan joojin inuu caalamkan ku soo kordhiyo cilmi cusub. sanadka 1971 waxay isla soo saareen asiga iyo caalimka xisaabta Roger Penrose aragti cadeynaysa si xisaab ahaan aragti uu soo saaray Albert Einstein. sanadka 1985 ee ahayd General Relativity oo ah aragti matalaysa sharaxa hadda loo adeegsado gravity ee modern physics. macnaha waxay guud ahaan uga hadlay special relativity iyo qaanuunka universal gravitation ee Newton. luqad aad ku fahmayso haddaan kugu sheego waa daliilada ugu muhiimsan cadeynaysa abuuritaanka kownka. waxay sheegeen asiga iyo saaxiibkiisa Roger in black holes afka carabina loo yaqaano al-thuqub as-sawda, af Soomaaliga loo yaqaano daloolada madow. in black holes daloolada madow ama xidigaha wax sababta u ah burburidiisa inay tahay cufjiidadka dartiisa. xaaladaasna waa mid kali waxaana lagu yeeraa aragtidaas singularity ama al-mufrada. macnaha singularity ee black holes waa natiijo ka timaaday maadada iskeeda u burburtay ilaa heer ay wax xajmi lahaaneen. sidoo kale waxay sheegeen in koonkani uu yahay keli ama singularity ka bilaabmay xajmi la'aan, markaas kadibna soo saartay maado wax la taaban karo iyo tamar. haddaan ku sii fududay wax laga wado black holes ama daboolada madow wuxuu ka mid yahay mawaadiicda ugu waaweyn uguna muhiimsan cilmiga falaka. waa meel ka mid ah koonka oo cufjiidadkeeda ay tahay mid awood badan, iyadoo aan ognahay iftiinka xawaarihiisa aadka u sareeyo ma awoodi karo inuu ka fakado ama ka baxsado ama uu ka baxo. sidoo kale waqtigeeda iyo booskeeda uu yahay mid aan dhammaad lahayn, macnaha ma lahan majaal wax uu ka soo bixi karo hadda iftiinka. wuxuuna black holes ka dhashtaa natiijo ka timaaday xidig uu dhamaaday iftiinkiisa kadibna uu qarxay qarax aad u weyn, markaasna waxaa lagu magacaabo supernova. hole macnihiisa waa dalool sida hore kuugu soo sheegay. markaa maqasho waxaa maskaxda kusoo degdegay inay la qeys wax walba soo maraya dhankeeda, laakiin sida dhabta ah waa cagsigeeda ee waa meelo ay maadada xoog saarideeda ay noqonayso meel aad u sareysa, mana suuraysan kartid midaasi, waana sirta ku jirta cufjiidadkeeda awoodda badan. sanadka 1974 wuxuu cadeeyay aragtida in black holes ay soo saarto ilis, midaasna waxay cagsi u ahayd dhammaan aragtiyada markaas jirtay ee sheegaysay in wax ilis jirin uu black holes kana iska jirayo dhamaad la'aan. ilis soo bixitaanka Hawking uu sheegayo waxay cadeynaysaa inuu dhamaanayo, waxaana loo bixiyay iliskaas iliska Hawking radiation ama ishcaac Hawking.
wuxuuna kaameystay aragtiyada quantum mechanics ama afka carabiga loo yaqaan mechanical cam waana mid ka mid ah aragtiyada cilmiga ee physics ee sharxaya heerarka atomka iyo subatomic particles ama aljuzaymaad duuna darriya iyo thermodynamics الديناميكا الحرارية وأصلا كمد فرعية statical mechanics afka carabiga loo yaqaan الميكانيكا الإحصائية وأصلا شرحها دبقتها وكوكا الجدب كل كتمرتها يو إثبات بدل كيسة وجيو كله فإذا أي نول هذا إنا فهم بلاك هولز يكون كسيدا وشقينا أي وحي نجي كلمين إذا إنا فهمنا نورشينا كدبنا كتطبيقنا وحن فهمنا دول كان يكونوا نهاي سي حدارة دينا أهر مرتب wuxuu في kitaabkiisa A Brief History of Time oo ah kitaab uu kaga hadlayo cilmiga koonka wuxuuna noqday kitaabkaasi kutubta loogu iibsi badan yahay ku dhawaad 4 sano waxaana loo tarjumay 35 luqadood kitaabkani waxayna dhaaftay nuskhada la iibiyay 10 malaayiin nuskhad 20 sano gudahooda kutubtiisa wuxuu ku dadaal jiray inuu u fududeeyo hadaa qofka haduusan lahayn wax khalfiyad cilmi ah si uu u fahmo Stephen Hawking waxa laga hayaa qoraale iyo codad badan oo dhalisay dood badan culimada sayniska dhexdiisa waana caalimka ay cuskadaan ama ay dilistaan mulxidiinta oo dadka aaminsan inuusan Allah jirin koonkan ku noolna abuurtaankiisana inuusan Allah u baahnayn We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe, and for that, I am extremely grateful. waxaana la yaab leh Stephen Hawking asigoo aaminsan afkaartaani ayaa haddana hadaa u fiirsato hadaladiisa arkaysaa inay isburinayaan hadaa kutubtiisa hadaa fiiriso waxaa arkay in asla asaas cilmi iyo daliil uu u keenay inuu Allah jiro hadaan fiirino hadaladiisa ugu muhiimsan uu dhahay ayaa waxa kamid ah maadaama la rumaysan yahay in koonka bila uu leeyahay in dowrka khaliqa uu yahay mid waadix ah laakiin hadii koonka muuqaal dhameystiran uu naftiisa iska koobmay ama isku filan yahay uusan lahayn soodin ama xad ama gees ama qar bilow iyo dhamaad la'aan jawaabtu waxay noqon mid aan waadix ahayn muxuu yahay dowrka abuuraha ama khaliqa halkan waxaan ka fahmaynaa Hawking inuu dhahayo koonkan haduu bilow leeyahay inuu Allah jiro isla kitaabkiisa ayuu wuxuu ku cadeynayaa inuu koonkan bilow leeyahay uusan ahayn wax iska jiray wuxuu ku dhahay kitaabkiisa A Brief History of Time waxaanu rumaysanahay in koonkani uusan ahayn wiligiisa wax iska jiray xadiis uu wariyay Bukhari iyo Ahmed iyo Tirmidhi iyo Nisaa'i ay ka wariyeen Imran ibn Hasin ayaa wuxuu sheegay in reer Yemen ay ku dheen rasuulka sallallahu alayhi wasallam noo sheeg bilowga amarkan ay ka wadeen jiritaanka koonkani sidoo ahaay wuxuu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaay Allah wax walbo ka hortiisa riwaayad kalena ay dhayso ma jirin wax ka hortiisa macnaha Allah wax ka hortiisa ma jirin ugu dambeyn Stephen Hawking markuu arkay hadaladiisa in isburinayaan ayuu haddana fikrad kale la imaaday wuxuuna ku qoray kitaabkiisa The Grand Design qaanuunka cufjiidadka sababtiisa wuxuu koonkan awood u yeeshtay inuu iska abuuro waxba maxaa yeelay is abuuritaankan uu kaligiis is abuuray waxay sabab u tahay inuu jiro wax asoo ka doorbidayo waxba wuxuuna noo fasiraa waayo uu koonkan u jiraa iyo anagaba ma ahan hadalka sidaan u dhahayo inuu adag yahay ee hadalka siduu u qoran yahay naftirkiisa ay adag oo u baahan in aad loogu celceliyo si micno loogu sameeyo markuu hadalka sidaan uu adag yahay micnaheeda waxay tahay in hadalka kale ay ka soo horjeedo hadalkani inuu fudud yahay oo ah inuu Allah jiro قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين